السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ku xiran janalkayga marka la soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin waa idinka mahadcelinayaa daawashada meel kastoo aad joogtaan waa sabti 19 bisha 6 sanadka 2021 warbixinada aan idin hayo waxaa maanta ugu waaweyn dad badan waxa ay maalmahan dhanka commentiga igu soo weydiinayeen lacagtii canshuur dhaafka loo sameeyay dadkii unemployment-ka qaatay sanadkii la soo dhaafay 2020 oo IRS ay soo direysay wali mana soo gaarin xagii ay ka baxday ayada IRS ayaa waxay sheegtay in toddobaadkii la soo dhaafay ay bilowday soo dirista lacagtaasi canshuur dhaafka loo sameeyay dadka lacagta unemployment-ga qaatay isla markaana tax return-kii xareeyay ka hor intii madaxweynaha uu saxiixin 12 bishii 3 sanadka 2021 lacagtii 1.9 trilyan ama sidoo kale lacagtii American Rescue Plan-ka oo madaxweynaha uu saxiixay oo lacagtan canshuur dhaafka ay ku jirtay lacagtan waxa canshuur dhaaf loo sameeyay dadkii unemployment-ga qaatay sanadkii la soo dhaafay 2020 isla markaana canshuur dhaafku wuxuu ahaa 10200 oo dollar qofkii qaatay canshuur dhaaf ayaa loo sameeyay lamaanahana sidoo kale 20200 ayaa loo sameeyay marka qofkii lacag ka hooseysa qaatay ilaa iyo 150 qofkii shaqeeya ayraade sanadkii ayaa lacagtaasi canshuur dhaafka helay dadka iyagu aan canshuurta laga jarin markii tax return-ka xareynayeen wax lacag ma heli doonaan marka hay'adda IRS waxay sheegtay in dad gaaraya ilaa iyo 10 milyan oo lacagtooda tax return-ka xareeyay ka hor intii sharcigan American Rescue Plan-ka uu madaxweynaha saxiixin canshuur dhaafkaasi inay xaq u leeyihiin ilaa iyo 10 milyan dad gaaraya in lacagtaasi loo soo diri doono isla markaana ay bilaabeen toddobaadkii la soo dhaafay ilaa iyo bilaha soo socdana ay socon doonto marka haddii aysan ku soo gaarin waa ay ku soo gaari doontaa hay'adda IRS waxay xaqiijisay in qofka lacagtaasi markii lacagtiisii tax return-ka uu xareeyay la calculate garay ama la xisaabiyay lacag yeeshay ay waraaq u soo diri doonaan hay'adda IRS ay waraaq u soo dirayso 30 bari kadib markii waraaqdaasi uu helo ayaa lacagtiisa uu bangi account-giisa uu ka heli doona marka waa ay bilaabatay hadda toddobaadkii la soo dhaafay haddii ay ku soo gaartay bal aynu ka ogaano commentiga noogu soo sheeg haddii aysan ku soo gaarinna waa ay kugu soo wajahan tahay oo hadda hay'adda IRS hadda waxay leedahay waan bilownay in aan lacagtaasi soo dirno dhinaca kale waxaan ognahay in lacagtii unemployment-ga $300 ahayd 25 gobol oo dhammaantood Republican ah ay ku dhawaaqeen inay joojinayaan isla markaana ay doonayaan dadku inay shaqada ku laabtaan gobolada qaarkood hadda waa ay joojiyeen kuwa kalena waxa ay joojinayaan maanta oo 19 bisha ay tahay gobolada joojinaya maanta oo 19 bisha ay tahay waxa kamid ah Alabama, Idaho, Indiana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota iyo sidoo kale West Virginia iyo Wyoming goboladaasi maanta ayay ku egtahay lacagtii $300 ahayd gobolada 12 bishan joojiyeen waxa ay kala ahaayeen sidoo kale Alaska, Iowa, Mississippi iyo sidoo kale Missouri sidoo kalena waxa jira gobollo kale oo iyaguna dhamaadka bishan joojin doona in June 27keeda Montana ayaa joojin doonta June 30keeda South Carolina ayaa joojinaysa July 3keeda Maryland iyo Tennessee ayaa joojinaya halka sidoo kalena July 10keeda gobolka Arizona uu joojin doono marka 25 gobol waxay si rasmi ah u sheegeen lacagta $300 ee unemployment-ga inay joojinayaan marka 25 kale lacagtu waa ay sii socon doontaa ilaa iyo 6 bisha September oo ah bisha 9aad oo ah xilligii loogu talagalay lacagta $300 ee unemployment-ga inay istaagto marka 25kaasi gobol haddii aad ku dhaqan tahay lacagtaasi unemployment-ga waad sii heli doontaa ilaa iyo 6 September laakiin gobolada qaarkood dadka waxay ku dhiirigelinayaan inay shaqo raadsadaan isla markaana haddii shaqo ay soo helaan ay ku soo wargeliyaan wax kasta oo dawladda ama goboladaas u qaabilsan dhanka unemployment gobolada 25 marka oo lacagta unemployment-ga $300 ilaa iyo 6 bisha September waa bisha 9aad sii wadaya waxa kamid ah California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia, Washington, Wisconsin iyo Vermont 25kaasi gobol waa ay sii wadi doonaan lacagta unemployment-ga ilaa laga gaarayo 6 bisha September xilligii loogu talagalay lacagta $300 ee unemployment-ga inay istaagto marka 25 gobol waa ay joojinayaan oo qaarkood waa ay joojiyeen kuwa kalena ilaa iyo dhamaadka bishan ay joojin doonaan 25 kana waxa ay sii wadi doonaan bilaha harsan oo ah July iyo August waa ay sii wadi doonaan labadaasi bilood 25kaasi gobol September bilowgeeda 6deeda ayayna lacagta $300 25kaasi gobol ay waxaan ognahay wadanka in hoos u dhac weyn laga dareemayo in cudurka coronavirus marka la eego kiisaska dadka u dhimanaya waliba dadka isbitaalka loo dhigay arintaasna waxa sababay in talaalka cudurka coronavirus inta badan dadka la siiyay madaxweynaha Joe Biden waxa uu jimcihii ku dhawaaqay in
maadaama 150 maalmood hadda xafiiska uu joogo 300 oo milyan oo qof la tallaalay 150 kaasi maalmood lagana tallaalay cudurka coronaviruska. laakiin madaxweynaha waxa uu digniin u diray dadka aanan qaadanin tallaalka cudurka coronaviruska. hadda wadanka waxaa aad loola qaylinaya inuu soo gaaray nooc la yiraahdo nooc cusub oo cudurka coronaviruska oo la yiraahdo delta oo dalka India ka yimid. noocaas waxaa la leeyahay si fudud ayaa la isugu gudbin karaa, waana khatar, qofka si fudud ayuu ku dili karaa. marka madaxweynuhu waxa uu leeyahay dadka aan tallaalka qaadanin waa inay hadda tallaabo degdega qaadaan, isla markaana ay qaataan tallaalka cudurka coronaviruska. sidoo kalena madaxa hay'adda CDC da Dr. Rochelle Walensky iyaduna waa ay ka digaysaa, waxa ay leedahay dadka aan tallaalka qaadanin siiba dadka da'yarta caruurta da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 15 tallaalkooda hadda waa la ogolaaday. siiba caruurta ayaa loo digayaa. dadka hadda inta badan cudurka uu soo ridanayo waa dhalinyarada da'da yar. marka dhalinyarada ayaa loo digayaa, waxaa la leeyahay waa in aad qaadataan tallaalka. dadkii tallaalka qaatay hadda xitaa hadduu cudurku ku dhaco dhibaato weyn kuma qabanayo, qofkii emergency ma aadayo. laakiin dadka inta badan hadda emergency-ga aadaya waxaa la leeyahay waa dadka aanan qaadanin tallaalka cudurka coronaviruska. marka madaxweynuhu waxa uu hadda ku boorinayaa dadka aan weli tallaalka qaadanin inay si degdeg ah tallaalka ay ku qaataan. madaxweynuhu waxa uu sidoo kale meesha ka saaray in lockdown dambe aysan jiri doonin oo wadanka aan lockdown la gelin doonin amaba aan la kala xiri doonin, maadaama hadda 70% intii madaxweynaha uu sheegay inta aan la gaarin July 4 oo ah in wadanka guud ahaan dadku dhaqan 70% la tallaalo, hadda 60% hadda la tallaalay oo lagu sii dhow yahay 70%. marka hadda digniintaasi ayuu madaxweynuhu u jeedinayaa dadka weli aanan qaadanin tallaalka cudurka coronaviruska. ilaa iyo 33 milyan iyo barkiisas ayaa wadanka laga diiwaan geliyay. ilaa hadda dhimashaduna 600,000 qof ayay kor u dhaaftay guud ahaan wadanka Mareykanka. dhinaca kalena wadanka waxaa kusoo biirtay holiday amaba maalin fasax qaran oo noqonaysa holidaydii ama fasaxii qaran ee 12aad ee wadanka. maanta 47 gobol oo ay ku jirto District of Columbia waxaa looga dabaaldegayaa June 10 amaba 19 June oo ah sanadkii 1865 oo ah maalintii la xoreeyay dadkii adoonsiga wadankan Mareykanka, dadkii madowga ahaa ee adoonsi ahaan wadankan ku joogay, isla markaana loo sheegay in ay xor yihiin. madaxweyne Joe Biden ayaa maalnimadii Khamiista ahayd qalinka ku duugay oo saxiixay sharci labada aqal ee sanadka iyo sidoo kale aqalka hoose ay meel mariyeen, isla markaana maalin fasax qaran loogu dhawaaqay amaba ka dhigaysa June 10 maalinta loo yaqaano oo ah 19 June oo ah markii dadkii ugu dambeeyay ee madowga ahaa ee wadanka Mareykanka adoonsi ahaan loogu u joogay loo sheegay in la xoreeyay. magaalada Galveston ee gobolka Texas ayaa sidoo kale looga dhawaaqay 19 bishii June ee sanadkii 1865 in dadkii adoonsi ahaan loo haystay la xoreeyay. sidaa darteed dad badan oo madow ah ayaa ilaa iyo xilligaasi waxa ay u ololeynayeen in maalintaasi loo aqoonsado maalin fasax qaran, iyadoo sidoo kalena maanta inta badan bay tahay 19 June inta badan gobolada Mareykanka maalin fasax qaran ay tahay, isla markaana dadka madowga ay u dabaaldegayaan. haddaba madaxweyne Joe Biden markii uu Khamiistii saxiixayay waxa uu maalintan ku tilmaamay maalin taariikhi ah. labadii qalin oo ku saxiixay maalintan fasaxa qaran waxa uu kala dhiibay Obal Lee oo 94 jir ah, isla markaana dadka u ololeynayay in maalintaasi laga dhigo maalin fasaxa qaran ahayd, iyo sidoo kalena haweeneyda kale oo iyaduna ku jirta aqalka hoose oo la yiraahdo Sheila Jackson Lee, isla markaana ka mid ah dadka iyaduna u ololeynayay. waxaa goobta joogay Ilhan Cumar, Ayana Presley, Rashida Tlaib iyo sidoo kale xubno kale oo madow ah uu ka mid yahay Jim Clyburn oo dhammaantoodba u dabaaldegay in maalinta loo aqoonsado maalin fasax. dalka hore waxaa uga jirtay 11 maalmood oo maalmo fasax qaran ah. maalintii 12aad ayay ku noqonaysaa, waxaana sidoo kale ay noqonaysaa 38 sano kadib maalintii ugu horeysay ee maalin fasax qaran ah oo labada aqal ay ansixiyaan, isla markaana madaxweynaha uu saxiixo. marka June 10 laga bilaabo sanadkan waxay noqon doontaa 19 June sanad kasta maalin loo dabaaltago. maalintaasi la yiraahdo June 10 oo ah maalin dadkii madowga ah ee adoonsi ahaan wadankan Mareykanka loogu haystay la xoreeyay. 156 sano ayaa hadda ka soo wareegatay, iyadoo sidoo kalena madaxweyne Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeen Kamala Harris ay markii madaxweynuhu saxiixay Khamiistii maalintan oo maalin fasax qaran ka dhigay halkaasi hadallo kooban ay ka jeediyeen, waxaana u mahadcelinayeen dhammaanba xubnihii u ololeeyay. waxaana madaxweyne Joe Biden oo sheegay inay ka mid noqonayso mid ka mid ah maalmihiisii ugu muhiimsanaa intii uu madaxweynaha wadanka ahaa, isla markaana maalin la xasuusto ay noqon doonto. maalinta la yiraahdo June 10 oo madaxweynaha uu Khamiistii maalin qaran ka dhigay ayaa labada aqalba waxa ay ku soo ansixiyeen codad aqlabiyada. aqalka hoose oo ahaa aqalkii ugu dambeeyay oo ansixiya 415 xubnood ayaa u codaysay, 14 xubnoodna waa ay diideen. sidoo kalena xubnaha u coday waxaa ka mid ah 14 xubnood oo ka tirsan xisbiga Republican oo iyagu maalintan xubnaha u coday ka mid ahaa in maalin fasax qaran laga dhigay. sidoo kale aqalka Senate-ku iyaguna cod aqlabiyada ayay ku meel mariyeen. isla markaana hadda June 10 waxa ay si rasmi ah u noqon doontaa
maalin fasax qaran maantana waxay tahay maalintii ugu horreysay ee looga dabaaldegayo guud ahaanba waddanka. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warbixinadii aan maanta idiin soo gudbinayay. haddii aad nala joogtay mahadsanid, haddii aad nagu cusubtaa fadlan channelka subscribe saar, gambaleelkana furo si aad uga mid noqoto dadka u horreeya ee marka warbixinadan soo geliyo. asxaabta haddana la wadaag si uga faa'iidaystaan sida adiguba aad uga faa'iidaystaan. haddii aad dhamaysatay muuqaalkana hilmaamin inaad like saarto si uu dad badan u gaaro. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkan cilmi waarowdila sida iyo nabadgelyo.